iyadoo warbaahinno kala duwan ay faafiyeen warar sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay u diiday hawadeeda kamid ah shirkadaha ay leedahay maamulka Yahuudda ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay warbaahinta BBC-da u xaqiijiyeen in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya aysan hawadeeda ka celin wax diyaarada. dowladdu waxa ay sheegtay in wararka sheegaya in shirkadda ay leedahay Israa'iil laga celiyay hawada Soomaaliya isla markaana loo diiday codsi cusboonaysiina ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin isla markaana been abuur ah. agaasimaha waaxda warfaafinta iyo sidoo kale xiriirka dadweynaha ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamuud Cabdi Cismaan Faradheere ayaana sidaasi u sheegay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. agaasimaha ayaa intaas ku dayay in dhaqdhaqaaq kasta oo duulimaad oo ku wajahan gobolada waqooyi ee dalka ay dowladda federaalka Soomaaliya ay mas'uul ka tahay isla markaana taasi looga dan leeyahay ilaalinta dhuleed iyo sidoo kale madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaana sheegay in warbaahinta qaarkood ay faafiyeen warar kala duwan oo qalqal gelinaya duulimaadka iyo sidoo kale sumcadda qaranka Soomaaliyeed. waana ka xunnahay in qaar ka mid ah warbaahinta ay noqdaan aalada loo isticmaalo faafinta wararka qalqal gelinaya nidaamka duulimaadka iyo sidoo kale sumcadda qaran ee dalka Soomaaliya ayuu yiri agaasimaha waaxda warfaafinta iyo sidoo kale xiriirka dadweynaha ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. diyaaradda laga leeyahay Israa'iil isla markaana la wariyay in hawada Soomaaliya laga celiyay ayaa ogolaashadeeda waxa la sheegay inuu ku eg yahay bishaan isla markaana uu ka dhacayo mandateedkii lagu talagalay inay ku shaqeyso isla markaana ay ku dulmarto hawada Soomaaliya, taas oo sida nidaamka caalamiga uu qabo ku qasbanaan doonta inay codsato cusboonaysiin si ay u sii wadato duulimaadkeeda. arrintan ayaana ku soo beegimsa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay muddooyinka la soo dhaafay qaadaysay tillaabooyin ay kaga hor imaanayso aqoonsigii Israa'iil ay siisay maamulka Somaliland isla markaana ay ugu aqoonsatay inay yihiin dowlad madax bannaan. waxaana intaas wixii ka dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadaysay tillaabooyin isdaba joog ah oo diblomaasiyadeed kuwaas oo lagu baabiinayo aqoonsiga Israa'iil ay siisay qaar ka mid ah gobolada waqooyi ee dalka.